wuxuu yidhi xaaskaygii oo ur leh ayaan ka soo tegay uu yidhi bilaadu shaaman uga soo tegay waxaan yidhi cilmi aan doonanahe laba adiga khiyaar u leh inaad isugto intaan caalim buuxa ka soo noqonayo inaan haddaba ku furo waanan ku xayirin markaasay tiri ilaahay dartiisaan kuu sugo ilaahay dartiis kuu sugo intaa rabta maqnaaw dalabulcilmi intaa doonta ku maqnaaw waa iska soo tegay u yidhi imaam maalik ayaan markaa iska ag fariisto uu yidhi fadlan haddii aad nagu cusub tahay janalkan sabskraib saar gambaraalka furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaalada diiniga aan baahino waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena laagna saar waxay noo tahay dhiirigelin oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel commentigan ha hilmaamin mar uu qaadir ciyaad ka sheekeynayay cabdiraxmaankaas cabdiraxmaan ibnu qaasimkaas oo imaam maalik markaa cilmiga xadiiska iyo fiqhiga labadaba ka akhrisan jiray wuxuu yidhi xaaskaygii oo uur leh ayaan ka soo tegay uu yidhi bilaadu shaaman uga soo tegay waxaan yidhi cilmi aan doonanahe laba adiga khiyaar u leh inaad isugto intaan caalim buuxa ka soo noqonayo inaan haddaba ku furo waanan ku xayirin markaasay tiri ilaahay dartiisaan kuu sugo ilaahay dartiis kuu sugo intaa rabta maqnaaw dalabulcilmi intaa doonta ku maqnaaw waa iska soo tegay u yidhi imaam maalik ayaan markaa iska ag fariisto uu yidhi sheekh imaam maalik waa shaykhu lmadiina u ahaa madiinatu lmunawara sheekhii markaa ugu weynaa oo cilmiga ka faafinayay masjidka nabigu wax ka akhri jiray sala allahu wasalam wabaarak calayh imaam maalik waana ku aasan yahay meesha baqiic masaajidka agtiisa lagu aasay sheekh qubraha baqiicu ku jira imaam maalik raximah allahu tacaala marka sheekhiyaa markuu yidhi iska ag fariistay imaam maalik ibnu anas 20 sano dib uma laaban uu yidhi 20 sano maalin maalmaha ka mid wuxuu yidhi anigoo xalqadii sheekha imaam maalik fadhiya ayaa nin dhallinyaraahu xalqadii uu soo istaagay markaasuu yidhi afiikum ibnu lqaasim cabdiraxmaan ibnu qaasim intiinan ma idinku jiraa cabdiraxmaan ibnu qaasim nin la yidhaha ma idinku jiraa markaasaa aniga farta taagu yidhi waa aniga cabdiraxmaan ibnu qaasim waa igu soo boodu yidhi markaasuu iskay duubay markaasuu meel walba iga dhunkoodu yidhi fawajadtu minhu raa'ixata alwalad waalid iyo waladkiisa hadda waa isku soo carfaane caraftii cunugayga xoogaa aan dareemuu yidhi waraamu kan waladkaagiiyo kii ur ku jira markaasuu wuxuu yidhi aabbahayaa tahay cunuggii waxaan ahaa uurka ku jira uurka cunuggaad uga soo tagtay ayaan ahayuu yidhi qisada qaadiciyaadaa ku sheegay kitaabkiisa la yidhaaho tartiibul madaarik oo culimmada maalikiyada uu uga tarjamayey culimada maalikiyada uu tarjamo u tahay marka tarjamo dheer uu u caqiday cabdiraxmaanka kitaabka noogu soo laalaabtay tarjamo dheer uu ka sameeyey tarjamadii uu qisadan ku soo dhex daray marka qisadan ku soo dhex daray marka ahal iyo naf iyo nafiisba diinta uga qaalisanayd iyaga ahal iyo naf iyo nafiisba diintaasaa uga qaalisanayd waa intaas hore wuxuu yidhi markaan fiiriyey waa nin gari laho aniga ila eg 20 sano waa fiiriyey buu yidhi war maxaad meeshan yaa kuu soo tilmaamay wuxuu yidhi de intaasoo maragtaa naga maqnayd oo tilmaantaan midoo xajaan hadda ku imid uu yidhi wiilkiia soo xajinay wiilkiia soo xajinaya yidhi xajaan ka imid marka maadaama xaj aan ku imid ayaan igu yidhi aabbaha allayleh waa inaad indhaha kusoo markaa ku soo kuulatid oo indhaha ku soo qabowsato aabbaha saasaan marka kuu soo raadiyey buuri marka waa fadliga cilmigay arkayaan oo u muuqda diin iyo cilmi waxa ay tahay ay u jeedaan oo u muuqda nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi innahu la yastakfiru xadiiskii tirmidi iyo imaam axmed labadooda ay warinayeen waxaa u dembi dhaaf dalba lilcaalim man fi الsamaawaati waman fi اlardi xata alxiitaanu fi اlbaxri malaayiga xataa badda ku jira waa u ducaynahay qofka diinta barta malaayiga badda ku jira xataa waa u ducaynahay qofka diinta barta marka ilaahay hana waafajiye waa dhaxalkii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa cilmigii khaaska u ahaa nabigeena sala allahu calayh wasalam iyadoo cilmiga dhan nabigeena sala allahu calayh wasalam laga wada bartay
ومعلمك علمي والبقوية النبي صلى الله عليه وسلم فقهي تفسيرك نحويه وحول بقى النبي حق السنوي مادين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كان هو خاص الخصوص كعلمك النبي مركو إسكالية هي يعني نصيب قارة قفك علمك عن وقت يسكب بحيه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه سنة علمك قار كالنبي قواها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ولذلك ابن حبان كتاب كيسا صحيحة ترجمة دير وأسمي انتو سنة أحاديثة بالله فضلك أحاديثة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضلك إلى ذا هاي وترجمة أسمي ابن حبان مركز وحو ترجمة كويرها وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته نبينا علمي وقارك وسنة نور ابن حبان في صحيحه فمن تعرى عن معرفتها قفك علمي عن سنة النبي كدر بيلا برشديسة لم يكن من ورثة الأنبياء مسوا قالوا يريدتك أنبياء النحل لأنه علمي كان علمي خاص كواها نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أيضا علوم تدنب النبي صلى الله عليه وسلم ونبري وحقي سينجسوا وذكارين ابن حبان أهل الحديث وحي راهن علمي وحي كترين علم السنة علمي خاص كواها نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه مركو حويري علم نبينا سنته ابن حبان في صحيحه نبينا علمي خاص كواها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء وفي علمي كان برشديس كمرنا هذا وعلمي كان بان حد لقسين ورثة الأنبياء وكمد ما هو مقل يوري حديث كاس إلهي النوافجي سبحانه وتعالى بركب بإذن الله بشان انت كدما ينصرنا السنة شعبان أحد أقوه الرئيسة دي إلهي بالنلول نقول قارسيه هنسكو إيماننا إن شاء الله تعالى كسوك يهدي أنقيريوننا نسأل الله تعالى حسن الخاتمة وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة إلهي النوافجي فضلا هدي أن نقع صبتها الجنة كان سبسكرايب صار قبلك فرو سيادو نقطة قفك وهرئ داوضا مقالة الديني قيام باهنو واتكم ما سنتهاي داوشة مقالة دينا لكن صار وحينو تهاي ديرقلين oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel commentigan ha hilmaamin